kusoo dhawaada janalka diyaariya markasta English conversations iyo grammar. Top English for you. Top English for you waxay idinla diyaar tahay grammar base ah iyo conversation u dhigma grammarka aad qaadato oo aan laga dhex bixin marnaba. aad ayaad u mahadsan tahay. waxaan kaloo ka rajaynaynaa inaad like noo dhihi doonto saaxiibadana u gudbi doonto. Okay, aniga waxaan ahay Dr. Cali Cabdullaahi Michael ahna macallin luqadeed. haddii aad jeceshahay inaad wax ka ogaato sidee verb to be negative loogu sameeyaa, sidee loo sameeyaa su'aalo short answers leh, nala joog fadlan oo nala dhamayso. 3.1 ilaa laba qayb ay ku kooban yahay 3.1 iyo 3.2. We use not in negative sentences. erayga not waxaa loo adeegsadaa jumladaha negative-ka. jumladda markay positive-keeda ku haysato, haddii macalinka ku yidhaahdo waxaa ka dhigtaa negative, maxaad adeegsan doontaa erayga not jumladda. sidaas ayaa diidmo kugu noqonaya. I am not a businessman. aniga ma ihi businessman. short form waa qaybta kore, qaybta hoosena waxaan dhahaynaa waa long form. I am not from Beijing oo kale. He isn't married. ma uusan guursan. waxaa kaloo dhihi kartaa he is not married. she isn't tired. ma daalana. tired anagu dhawaaqayna eragan. she is not tired. ma daalana. Use not in negative sentences. I am not a businessman. I am not a businessman. I'm not from Beijing. I'm not married. I'm not tired. Okay. And he isn't a businessman. ganacsada ma aha asiga. Okay, he isn't from Beijing. Beijing kama soo jeedo. short formka ayaan jecelahay. so short formka isticmaalaa marka kan kalena dabcan waa isticmaali kartaa. he isn't married. ma uusan guursan. he isn't tired. ma uusan daalin. she isn't from Beijing. she isn't from Beijing. Beijing kama soo jeedo. she isn't married. ma isan guursan. she isn't tired. ma daalana. waxaan rajaynayaa in aad fahantay exercise-ka bal isku day. make the negative sentences. jumlada negative kan ka samee. she maxaan dhahaynaa she isn't a bus driver. she isn't a bus driver ayaan dhahaynaa. okay, she isn't a bus driver. 2 I from England. meesha waxaa ka maqan talo. waxaan dhahaynaa I'm not from England. Okay, Carl isn't married. Carl ma uusan guursanin. Rita isn't a police officer. Rita ma ahan police officer. Yes or no questions. unit-ka waxaan ku qaadanaynaa sida aad u samayn lahayd su'aalo yes or no question ah, then aad uga jawaabi lahayd. waxaan leenahay are you a builder? adiga fuundi miyaa tahay? are you a builder? adiga fuundi miyaa tahay? are you a builder? adiga fuundi miyaa tahay? okay, are you a builder? adiga fuundi miyaa tahay? jawaabta waxay noqon doontaa laba mid, inaad tahay iyo inaadan ahayn. okay, yes I am. haa waan ahay, qof fuundi ayaan ahay. no I'm not. maya ma ihi. qaybtan kale is she French? gabar Faransiisa miyaa iyadu? okay, yes she is. haa way tahay. no she isn't. maya ma ahan. waxaan leenahay is his name Powell? okay, magaciisa Powell miya? yes it is. haa way tahay. no it isn't. maya ma ahan. okay,
Are they married? Miyay guursadeen? Waxaan leenahay yes they are. Haa way guursadeen. No they aren't. Maya ma aysan guursanin. Okay? Okay. Answer the question. Su'aalahan ka jawaab. Are you from Japan? I am. Or no I'm not. Hay kan labaad. Yes it is. Ama no it isn't. Way hay kan saddexaad maxaan dhehnaa are you married? Miyaa guursatay? Haa waan guursaday ama may ma guursanin. Yes I am. Haa waan guursaday. No I'm not. May ma guursanin. Okay. Are you married? Miyaa guursatay? Yes I am. No I'm not. Hay. Is Linda 20? Linda 20 jir miyaa? Yes she is. Haa way tahay. No she isn't. Maya ma ahan. Okay. 3.2 verb to be. Okay, verb to be ga dabcan markaan waa yara baratay magacii amsar waa la bedelay verb to be magacoodii ayaa lagu siiyay. Okay, we form present simple of verb to be like this. Waxaan u qaabeynaa present simple verb to be ga sidaan oo kale. Sidaan oo kale ayaan u qaabeynaa. Waxaan dhahaynaa I, you, saddexdan qayb ayaan u sameynaa verb to be ga. qolka koowaad ama gele kan dhexe isa gele kan hoosan aaraya gelis. Okay, negative form kana sidoo kale on baan u sameynaynaa like. Okay, I waxaan leeyahay am. Way I am. And I am. Way and I am from Chile. Aniga wadanka Chile ayaan kasoo jeedaa. Way waxaan leenahay she is from Chile iyo he is from Chile iyo it's from Chile dhamaan saddexdaasna id ay qaadanayaan wuxuu ka soo jeedaan waxaan leenahay he is from Chile Chile ayuu ka soo jeedaa she is from Chile Chile ayuu ka soo jeedaa it's from Chile Chile ayuu ka soo jeedaa shayga ayaa laga keenaa salaan. Okay, waxaan leenahay you're from Chile Chile ayaa ka soo jeedaa you are na waa dhihi kartaan. Okay, we are from Chile we are na waa dhihi karaa. Okay, they are from Chile they are na waa dhihi karaa. Okay, qaybta negative variable negative waxaan leenahay I am not from Peru aniga Peru kama soo jeedo. He isn't from Peru asiga Peru kama soo jeedo. She isn't from Peru it isn't from Peru. Okay, waayahay Peru kama soo jeedo. You waxaan leenahay you aren't from you are not na waa dhihi karaa. You aren't from Peru. Okay, we aren't from Peru kama soo jeedno. They aren't from Peru kama soo jeedaan. Okay, 2 make waxaa sameysaa the negative samee. Okay, qaabkee u sameynaynaa qaabkan ayaan u sameynaynaa. We aren't from Kenya kama soo jeedno. They are happy way faraxsan yihiin kan damba negative baa laga rabaa. She isn't singer maahan heesaa maahan. Way 3.2 verb to be. We form questions with verb to be like this. Waxaan u sameynaynaa verb to be ga su'aalaha qaabkan oo kale. Question with question word. Su'aal wadata eri su'aaleed. Okay, what's your first name? Magacaaga koowaad waa maxay? Okay, what is his job? Shaqadiisu waa maxay? Waxaan leenahay where are you from? Halkee ka timid? Where is she from? Iyadu xagee ka timid? How old is she? Imse sana ayay jirtaa? How old are you? Imse sana ayaa jirtaa adigu? Waayahay jawaabaha waxaan leenahay what's your first name? Team. What is his job? Shaqadiisu waa maxay? He is a builder. Okay, where are you from? I am from Italy. Italy ayaan kasoo jeedaa. Where is she from? Halkee kasoo jeedaa iyada? She is from Thailand. Thailand ayaan kasoo jeedaa. How old is she? Meeqa sana ay jirtaa? She is 23. 3 sana ay jirtaa. How old are you? Adiga meeqa sana ay jirtaa? I'm 17. Aniga 17 sana ayaan jiraa. Make the question su'aala ka samee kuwan. Haye su'aasha koowaad sidaan u sameynaynaa. Okay, waxaan leenahay sidaan. What's her address? Ciwaankeeda waa maxay?
Okay, how old are Bowel and Tina? meeqa sana ay jiraan Bowel iyo Tina? Su'aasha xigta waa where are you now? hadda xagee joogtaan? Waayahay 3.2 verb to be. Waayahay number 5 we form yes or no question with verb to be like this. qaabkan oo kale aan samaynaynaa baleeg yes or no questions are short answers. Okay, is he English? Is he English miya? Yes, he is. Ha wuu yahay. Is she English? Iyada English miya? No, she isn't. Maya, gabar English maaha. It is English. Shaygan English miya? No, it isn't. Maya ma aha. Are you students? Arday miyaad tihiin? Okay. oo plural students hadda. Are you a student? Arday miyaad tahana waxaan dhahaynaa yes I am. Are you students? Arday miyaad tihiin? Yes we are. Okay. nasa xaggan u rarnaa waxaan leenahay are you English? adee qof English ma tahay? Yes I am. Okay, are we students? arday miyaan nahay? Yeah, no we aren't. ma imanhin. Are they students? iyaga arday miya? Yes they are. ha way yihiin. 6 make questions. su'aalo samee. ay su'aalo qaabka su'aalaha sameynaynay waxaan sameynaynaa waxaan soo hormarinaynaa verb to be ka subjectan ku xijinaynaa then waxaan dhammaystiraa complementigan sameynaynaa. Okay, are you from Scotland? Scotland miyaa kasoo jeedaan? Okay, are they married? miyay guursadeen? Is she a teacher? iyada macalimad miya? Thank you very much. That's the end. Okay, please hadduu kusoo gaaro videogan aad nagu cusub tahay kusoo dhawow channelkeena aad baan